tababarkani oo muddo laba cisho uga socday qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiyada sare ee magaaladani Boorama ayaa waxa uu qayb ka ahaa mashruuca codka dhalinyarada oo iska kaashadeen dalada Soonya iyo sidoo kale hay'adda SOS oo ka shaqeysa 10 dugsi sare oo ku yaala dalkani Somaliland kaasi oo kulankani lagu soo bandhigay cilmi baaris ay sameeyeen qaar ka mid ah gudida ardayda 10 kaasi dugsi isla markaasina ujeedada cilmi baaristaasi ahayd in lagu ogaado xaaladaha iyo baahiyaha ka taagan dugsiyada sare ee dawliga ah ee dalka ana ka soo qayb galay tababarkani maamulayaasha dugsiyada sare ee magaaladani Boorama waalidiin xubno ka socday wasaaradda waxbarashada heer gobol waxa ugu horeen halkaas ka hadlay gudoomiyaha dalada Soonya ee gobolka Awdal Mustafa Cige qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada sare gudida ardaydani soo bandhigaysay cilmi baaristani ay sameeyeen iyo waliba mas'uul ka socday wasaaradda horumarinta waxbarashada ee gobolkani Awdal waxayna dhamaantoodna tilmaameen in si wada jir looga wada hawlgalo baahiyaha waxbarasho ee ka taagan dugsiyada baahiyaarnaantii ka dugsigaadana saaqan soo bandhignay ka ardayahan ee tabeynay inaan helno intaanu qabsan karno oo qabsanana intii kalena waxaanu doonaynaa ka codsanana inay naga caawiyaan ama wax nagala qabsaan baba wasaaradda waxbarashada iyo dugsiyada ka mas'uulka iyo hay'adaha ka shaqeeya ma taqaanay iskuuladaas kulay ujeedada maanta isku wanaaghayd laga wada hadlo baahiyaha iyo duruufaha kulay iskuulada ka jira wax badan kulay waan isla taataabanay iskuul walbana kulay baahiyo badan baa jira iskuulahaana kulay iskuul walba intii awoodiisa wax badan uu dadaalaya inuu baahiyaha wax ka qabto kulay waxaan jeclaanahay inuu Soonya intii awoodeeda inay nala ag joogsato baahiyaha waad baan ugu mahadsanyihiin horta Soonya waxyaalo badan oo inala qabatay baa jirta oo khaasatan dhinaca dhalinyarta ardayda ay ku tababareen sida leadership oo kale sida loo sameeyo clubska oo kale waxyaalo badan oo ay ardayda u faa'iideeyaan baa jirta iyo waalidiinta marka waxaan leeyahay maadaama mashruucu uu bilow yahay idinku saad ka dhigtay uu noqonaya marka waxaan leeyahay ardaydana mideeya idinkuna midooba sida marka labada mashruuc baahidiisa loo sameeyo taasina waa aynu private kan ula taagi doono laba iskuul oo kale oo private inagu xigaana way caawin doonaan marka ardayda iyo cid walbana marka turbiishka qayb qaadataan wasaaradda wixii la inala qaban karo waa la inala qabanay waxaan soo yahaan anagu leeyahay talahaan in talada la soo jeediyay iyaguna waana la inoo qoray waa la gudbin doonaa inaguna intaana halkan ku hadhay in baahiyahaas iyo si cilmiyeysan u qoran ma aha si seminaariya lagu qaatay maaha waa si cilmiyeysan u qoran oo hadaynu 10 sano ka tinimaadno khadri iyo nuuxiya aynu garanno in mayaashay aynu dhalaynay baahida iyagoo fadhiya aynu aragno hadii laakiin halka aynu kaga dhaqaaqno bari toona seminar kala iman doona waxaynu ka sheekayn doonaa un baahiyo kale oo tiimba soo wareegi waa Cabsalaan Saha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama.